nimanka dhaqaatiirta halkan jooga waxay ku leeyihiin biyo nacab ay socona labadii ku qorayeen koobaad intaas labadaas ay kugu bilaabayaan waxay daawo ku siiyaanba waxay kugu darayaan intaasay macna oo tala ay ku siinayaan soco biyo cab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلبنا ساحب ريال أخيرا لسعود أخيرا ما أنت ساحبات أوجدين اللوجين يا ما أنت وويل الشماليات والوجيننا ساحب الوجيننا لوك عمرنا لوك انت ساوي من حارك الصومالي برد صعدك مش هذا لا صعده رجع خيرتها وحاوي شغال كودا حاجه يكادي يا سيدي شو اسمع له رساله كودا هذا بلو هذا بلو بسم الله اوكي لبا واكاس اوكي سدح افر شن وات ساعه كوي ثمن سدح وب والله حسافرنا يا سعودك نوعنا كلام ناقص ساعه بشي ما طلباتك قلب كسته ما واحد مكا رختار كل رقم من كريم سواء حد يدور رتوا يا صوت فرقان صوير رختار صح رجوناها لا شقي ايوه انت صوت كمان مط سمي صعد قدر سعد كالبته يبيعوه قال هو قرت الحمد لله ما قدرت تمك عليها واحد بدل ما يسبدها شالهان waxa ma kor dareemi socod koor hadda laakiin ka tagay maxaa kamid ah markii hore markii laga hayo waa qorto jiray صح ونفتوري in raag badan marka naftuurka banaadan ma jiro hay الحمد لله marka qaar wadnaha بكامل جنسية مال ملاحظ كل عمل كلية مرة كان واحد يزعل كان حبس الحمد لله مرة واحد وقفنا الحمد لله الحمد لله هذا أنا ما شاء الله الحمد لله في راية ما أدرك ما أنت عريس مكة سعود كان بس كوا مساعدين وحواي ساجد كيقول سعود كل عادي حد صلاة مرة واحد قال على ميتان قال صاع يفرق على صاع إلا ما طلع يا صح والصبح قلبكي بالخاص قلبكي ما شاء الله زعل أبا إيه اللي باقع ولا صايع أبا قال توك ولا سكدوبة هذا رجع جدا لما أنت بحواي رجع أنت استعلوا يمت ويعني أنا ردنا كورناها أنا يعني واحد ليت لا لكن أنا بنين ما حنونا كلا حتى لكن اخترت كتلي إني سعود كبديان مالك السعودي دان والسعودان ويا عالميتيان وكحلقة على العليس مالنتي متوكل أن ترسعودان ساتو كلا صباح دي سعودها وده هاي قربت نوا باب الله سعنا وقربت أجدان مركب أنت بكم هبت يخلي أنا غطي أنا ما أشوف عدد الجانب كلي يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما سنتين Soomaalidu waxay joogtaa dalkeeriyo maaragtay ay ka soo cayriyeen صح macnaha nabad aan ahayn marka waxaan haysanaa nabad bilaaba waxaan rajaynaynaa sanadkiisa dalka Soomaaliya inuu maaragtay nabadii ay waarto inuu si wanaagsan ahaado waxaan kala rajaynaynaa in loo soo aadi doono oo adduunyadu soo shaqo tagi doonto
dalka Soomaaliya saasna rajaynayna dhaqamada halka ku aragnaa waa dhaqanna qaar ka hor fiican yihiin qaarna aysan sida la raba ahay waa gartay marka wax fiican aan ka qaadahaynaa waxa noo ka leexanaa aad u maasan okay xilwaana Soomaalida meelo isbees ay ku almitayaan sida xagga kala dadku waxay leeyihiin ma lahan oo inta waxay leeyihiin dadka isbees ku almitayaan laakiin dalku ma diyaarsana meelo saan oo kala lagu orday lagu socdo walaahi kulle meesha nabad u taalo meel lagu socdo laga ma waayo marka meel haday nabad tahay sax waxa waaye waxaad ku helaysaa waxaad jaanis u helay waqti u helay inaad maaragtay socoto inaad maaragtay iska soo sheekaysato sax marka haddii mar aad nabad haysatana wax ku dhiman ma jiraan adduunyada ku dhamaystiran xilwaan markaan ka hadlaynaa dhanka dawladnimada iyo kala dambeynta waddanka maxaa isleedahay laga baran karaa waddankan wax badan laga faa'iidi karaa laga baran karaa oo looga dayan karaa caafimaadka kamida amniga ay hadda maaragtay saas aragto hadda meesha dalka iska lugayo hayna adnana ma waardiyo hayso adnana ma ilaaliyo hayso marka amniga looga dayan karaa caafimaadka looga dayan karaa businesska xataa business fiican ay leedahay inkastoo annagu maaragtay sanadadii businesskaynu soo koraayay oo kobcayay meel fiican oo maraayo marka ilaahay idinkiis waxaan leenahay waxa noo dhiman Allah noo dhamaystiro ummadda halkan u soo tagtana oo caafimaad u soo tagtana ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay aanu baryaynaa ilaahay tuugaynaa waana rajaynaa ilaahay idinkiis dalkayno nabad iyo caafimaad leh maaragtay idana waa gaari doonaa hadii ilaahay حاجة عنتها كورن شيء حلبانة عنتها وضن كان يمكن البرد يقول عنتها وضن كان لقعنه هذا عنتها وضن كير تعالوا كلا لما هلي كرو ما اللي هلي كرو لكن وحيوبها أنت هاي أنت نفتر عنتها وتعالى أو حيالها مارك فئات وأنا أكثر أركن وحكمنا خضارته صح وحكمنا مارك تبيها صح هذه جو حيالها بدنا مارك لكن أنا كنت أتين لما جاري كرو hilibkayni maaragtay freeshka ahay oo idaha ahay oo ericadka ahay oo maaragtay geela lahay lama heli karo waxa inta soo dhan ayaa maaragtay meesha taala marka hadda waxay rabtaa inaan maaragtay meeshaan maaragtay caafimaad u soo aadnay inaan isbitaaladayna caafimaadka u aadnaan rajaynaa ilaahay idinkiis oo laga marmo leedahay ahay oo laga marmo imisa qaadayna saas leedahay iyo meelo kale imisa qaadayna saas leedahay rajadaas ma dheero waa sida loo shaqeeyo waa sida loo shaqeeyo sida loo shaqeeyo waa adeer waxaad ma hadle ma wax dheer ma waqti gaaban waa waxaan soo marnay iyo waxaan maro hayno waa la soo maray waa kaafi kala dheeri maanta waa la soo maray dadka dawladda badanaa soo maray laakiin maanta waxay gaareen heer ay maaragtay say rabeen u noqoto aniga hadda maanta wax yar ma naga dhiman mar haddii maaragtay sharciyada la ilaaliyo oo sharciga la ilaaliyo oo la ilaaliyo wax kasta wixii dawlad wax kasta waa hagaagay wax dhibaatana ma jiraan marka intaas ay u baahan tahay hada waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis in dalkayni oo maaragtay saas la isaga lugay haayo ilaahayna tusi doono haddana waa lagu lugayaa fiir hadda waa lagu lugayaa in dad qowmiyadooda qaar looda caabudo qaar looda qasho muxuu ahay qaar dabka caabudo qaar dadka ay gubaan qaar islaam ay yihiin wax intaas oo diinood leh inay amnigan ku noolaadaan annagoo Soomaali ah isla dhalanay cid kasta oo Soomaali waqooyi iyo koonfur haddii la isku keeno labadii qofood ee Soomaaliya hadday is wadaystaan waxay noqonayaan dad ehela oo meel dhaliya ka wada noqonayo marka waxaan aad iyo aad uga xumahay annagoo sidaas in qowmiyadaas intaa la eg oo intaasoo diimood kala haysato ay wada nool yihiin diimood haysato ay wada nool yihiin amnina ay haystaan annagoo ilmaadeer ahna inaan amniga inuu yahay aad aan ugu xunahay insha Allah waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay ka hagaagi doonto ilaahayna hagaajiyaan leeyahay xilbaan dad baa waxay leeyihiin socodka caadiga dad Soomaalida ma socon karaan ilaa in la soo qaran mooyo sacal yiraahdo mooyo maxaa ka jira taas wallaahi hadda waxaan u maleeyahay socodka caadiga hadda nimanka dhaqaatiirta halkan jooga waxay ku leeyihiin biyana cab socona waa labadii ku qorayeen koobaad intaas labadaas ay kugu bilaabayaan waxay daawo ku siiyaanba waxay kugu darayaan intaasay macna oo tala ay ku siinayaan soco biyacab
marka waxaan rajaynaynaa dhaqaatiirtaynuna lafteeda waa tiraahdaa biyana lacab hore la socdo waa tiraahdaa laakiin kuma dhaqane waxbaa ka dhimane socodku waa caafimaad biyuhuna waa caafimaad waa nolol waa laba shay nolosha asaasiga ah marka annagu dalkaynu dal raashinkiisu fresh waaye waa run caana haddaad aragto wax kasta waa fresh ilaahay marka waxaan leenahay waxa yaroo ka dhiman nabadda allaha noo reeriyaan leenahay wamaasanta asalaamu calaykum waraxmatullahi raggaan maalintii waxay jiraan ilaa 20 kilomitir ka badan maalintii jiraan ilaa 30 kilomitir oo socda hadda xaafadda baarlamaanka ka soo tagnay marka meeshaan ka soo galnay meelsha ahayn ka galinaa marka marka qiyaas aamku waa 10 iyo dhowr kilomitir waa 20 kilomitir